sida uu walaalkay sheegay Maxamed Mubaarak insha Allah taala waxaanu idin soo siyaartay Ilaahay dartiis baan idin soo siyaartay awal waxa laga yaabaa sida walaalkay sheegay inaanu xumaanta isku garabsano marka insha Allah taala walaalayaal khayrka ayaynu isku garabsanaynaa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay baa mahadsan leh ilaahay nimcadana siiyay barwaaqada yaanigi Ahmed khayrna isku kaaysimay ee colkii kalena naga soo saaray alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka hore mar labaadka waa la xusaa qofka ku duubaya kabrada marka ugu horeysaba waxa naga duubaya halabuur cawl bile waxa ila jooga walaalkay Ahmed Khayr Ahmed Beef baynu oran jirnay marka hore nana istimar walba waa xusuus way gashaa waxaan sidnaa khayr markii horeba de waxa shadaadinta waa naga dhageysan jirtay laakiin khayrka faafiya وعي قلنا بنسدنا محاضر بنسدنا وح قروح بدن وكفر حسن ما تينا وح ونكسن نادنينه وبالشيء ذي والشيء إنه أدبنا وفر حسن ما شاء الله ولكن با وحين قال يا محاضره حنقول لنا قولت ما نتجمعها قلبت تجمعها هدي إلهي هذا صدق دي بركم كسرات لقى صبحه وينو قولت كاليا أو خير كسوع عمرة مركي هربوا إنه يمشيتنا خير كنوجو كاليا وأن سودوينه وحنا أكسب بنوسيدناه نلقاته إما كانوا حد يكسودوينه ولالكي ما شاء الله عسي شرفكم ولادا شرف كركينا هاتو خير كسوع عمرة خير كسكاليا خير ككاليا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن ولا ليال سيدا أولالك شاقي محمد مبارك إن شاء الله تعالى وحنو إدون سو سيارتي إلهي درتي سبان إدون سو سيارتي إيوان أصحاب تيدي إيو صاحب ديدو هوريتو عن وحير لقاتو رنتينا أن يسو شاقنو خيرك إيو ماركت إلهي سبحانه وتعالى طريقي ستوصن إلهي سبحانه وتعالى نوافجيي أنيقا إيو أصحاب تيدي هوربا مركا ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحاو قرآن كيسا كليهي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعنها دويهي إسوكا شدا خيرك إيو وناقا إيو الله كعبسيقا إسوكا شدا ها إسوكا شننا ha isu kaashanina dambiga iyo xadgudubka ha isu kaashanina marka walaalayaal insha Allah taala dhamaanteenba waxaan ila ka rabaa inaynu khayrka isu kaashano wanaaga isu kaashano ilaahay dartiis maartay aynu isu soo booqano ilaahay wixii adduun iyo aakhiraba ay dani inoo ku jirto aynu isxusuusino wixii adduunka maartay intaynu joogno in khalkhal gelinaya oo aakhiradeenni in ka mashquulinayana inaynu isaga degno wixii in ku boorinaya wanaageena iyo khayrkeena iyo horumarkeena iyo sidii rabbi subhanahu wa ta'ala u raali inoo ka noqon lahaa adduun iyo aakhiraba inay ku jirto diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu qaadano dariiqii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam aynu ku qaadano asxaabadii iyo taabiciintii iyo sidaas laga soo gaaray halka jidkaas inaynu maro marka sidaas awgeed waxaanu insha Allah taala rabnaa wanaaga iyo khayrka inaanu isku garabsano awal waxa laga yaabaa sida walaalkay sheegay inaanu xumaanta isku garabsano marka insha Allah taala walaalayaal khayrka ayaynu isku garabsanaynaa sida uu walaalkay sheegay insha Allah muhaadaradaasi waxa nagala soo qayb gali doona mashaayikh waaweyn oo uu kamid yahay Sheikh Ahmed Eid xafidahullah Sheikh Abdullah Barbarawi xafidahullah iyo dad kale iyo asxaab kale oo fara badan oo uu kamid yahay Abwaan Yusuf Shaacir oo runtii ahaa abwaaninta Soomaaliyeedna kamida haddana dhamaantaya aanu khayrka isku garabsanayno marka insha Allah taala walaalayaal insha Allah guuleed hotel maalinta jimcada ah ba insha Allah taala hadii alla na gaarsiyo inoo ballama halkaas ayaanu insha Allah taala dhamaanteenba aan ku kulanno wixii khayra aan isu weydaarsano wixii insha Allah taala adduunyada iyo xaalkeedana aan isaga degno meesha
aakhiran lagu dambayn doono waa aakhira ayaa badan adduunkuna waa wax yar oo kooban oo waa ka tegaynaa marka insha Allah taala dhamaanteen khayrka Allah ina waafajiyo marka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh